waxaan idinku soo dhawaynayaa barnaamijkan gaarka ah ee maanta waxaanan idiin wadaa warbixin kale oo taariikheed oo qoto dheer si tartiib ah ayaan kuugu socodsiin doonaa sheeko dheer oo isku xiran taas oo ka hadlaysa taariikhda Jabuuti iyo sida ay u soo martay geedi socod adag oo siyaasadeed, dhaqan, ganacsi iyo gumaysi. Waxaan rajaynayaa inaad ila socotaan si aad u heshaan sawir buuxa oo ka turjumaya dhismaha qarankaas yar laakiin aadka muhiimka ugu ah gobolka. Jabuuti waa dhul leh taariikh fac weyn, waa marin istiraatiiji ah oo ku yaal meel ay ku kulmaan Afrika, Carabta iyo Aasiya. Kumanaan sano ka hor waxay ahayd hoy ay ku noolaayeen bulshooyin reer guuraa ah oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah iyo kooxo ganacsi oo ku xirnaa xeebaha. Dadkaasi waxay lahaayeen afaf kala duwan, dhaqamo iyo xeerar bulsheed oo la kala dhaxlay jiilba jiilka ka dambeeya. Xeebaha waxay ahaayeen meel ay isku arkaan maraakiib ganacsi oo ka imaan jiray Carabta, Hindiya iyo Bariga Afrika. Taasi waxay Jabuuti ka dhigtay meel muhiim u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka. Soo gelitaanka ganacsatada Carabta ee xeebaha Jabuuti waxay abuurtay xiriir dhaqan, diin iyo ganacsi oo qoto dheer. Suuqyo iyo dekedo ayaa kobcay, siyaarado iyo dhaqanno cusub ayaa soo galay, waxaana bilaabmay ganacsi ku saabsan xawaashka, macdanta, dhuxusha iyo xoolaha. Dhaqankaas ganacsi wuxuu kordhiyey dadka isku socodkooda iyo fikir cusub oo isdhaafsiga ku saabsan, taasoo ka dhigaysa Jabuuti meel uu hal abuur iyo nolol cusub ka kobci karo. Markii dambe, quwadaha reer Yurub ayaa saameyn ku yeeshay marinka istiraatiijiga ah ee Jabuuti. Waxay ahaayeen quwado doonayay inay xakameeyaan Badda Cas, marinada ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka. Waxay bilaabeen inay dhistaan saldhigyo ciidan iyo xarumo maamul, waxayna si tartiib ah ula wareegeen qaybo badan oo ka mid ah maamulka. Dadka deegaanka waxay la kulmeen cadaadis, dhaqaalahoodii iyo ganacsigoodii waa la xakameeyey. Gumaysigaas wuxuu saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkooda, dhaqankooda iyo hab nololeedkooda. Inta uu gumaysigu socday, dadka deegaanka waxay ku jireen adkaysi. Waxay dhaxleen dhaqan ah in aysan ka tanaasulin dhulkooda, xoolahooda iyo xorriyadooda. Waxay ka sameeyeen kacdoono yaryar, doodo bulsho iyo abaabul hoose oo u dhexaysay beelaha. Inkastoo gumaysigu adeegsaday sharciyo adag, canshuur culus iyo cadaadis siyaasadeed, haddana dadka Jabuuti waxay ahaayeen dad leh dulqaad iyo karti ay kaga jawaabaan xaaladaha adag. Geedi socodka wacyigelinta iyo halganka siyaasadeed waxa uu xoog yeeshay qarnigii 20aad. Dadka Jabuuti waxay bilaabeen inay abaabulaan ururo bulsho iyo kuwo xorriyad doon ah. Waxaa bilaabmay kulamo iyo doodo siyaasadeed oo lagu dalbanayo matalaad iyo xuquuq cadaalad ah. Dhalinyaradii iyo odayaashu waxay horseedeen hadallo iyo abaabul bulshada lagu mideeyo. Waxay ku adkaysteen in dadka deegaanka ay leeyihiin xuquuq ay tahay in la ixtiraamo. Waa halkii uu halganku ka bilowday inuu noqdo mid muuqda. Markii ugu dambaysay, waxaa la gaaray xilli kala guur.